ummadda reer Somaliland meel kastay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ummadda jamhuuriyadda Somaliland ee gobollada dalka oo dhan, gaar ahaan kuwa ku teedsan xeebaha ama gubanka ay ka mid yihiin gobolka Sanaag, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Saaxil, waxaa soo wajahay xaalado adag oo ka dhashay abaaraha ba'an ee ku habsaday deegaanadaas, taas oo khatar weyn ku keentay nolosha dadka iyo dunyadaba. ceelashii iyo ilihii biyuhu way gureen, dhul daaqsimeedkii wuu xaalufay, xoolaha nool oo ah lafdhabarta dhaqaalaheenna way sii dabar go-ayaan, noloshii dadkuna khatar aada u weyn ayay soo wajahaysaa. cunto la-aan, haraad iyo barakac ayaa ka bilowday hooyooyinkii iyo ubadkii ay dhaleen iyo dadkii waayeelka ahaaba way saameysay abaartaasi. walaalayaal, maanta deegaanada waxaa ka taagan xaalad bani aadamnimo oo adag, waxaynay dhammaanteen inooga baahan tahay inaynu kaga jawaabno gurmad midaysan iyo dareen wadareed ummadnimo oo aynu ku badbaadinayno dadkeenna tabaalaysan. walaalayaal, anigoo si weyn uga murugaysan xaaladda dhiilada leh, xukuumad ahaan aanu dadaal adag ugu jirno inaanu gudanno mas-uuliyadda culus ee iga saaran ilaalinta iyo daryeelka nolosha muwaadin kasta. waxaan maanta si rasmi ah ugu baaqayaa gurmadka abaaraha ee heer qaran oo aynu maanta kula tacaalayno xaaladda sii adkaanaysa. xukuumad ahaan waxaanu diyaarinaynaa qorshe wax lagaga qabanayo xaaladii hore ee ay abaartu u saameysay ay ka mid tahay biyo la-aanta, cunto la-aanta, daawooyin iyo agabka lagama maarmaanka u ah in la gaadhsiiyo dadkaas. xukuumad ahaan waxaanu diyaarinaynaa gurmad isugu jira biyo, cunto, daawooyin iyo calafka xoolaha in la gaadhsiiyo dadka abaartu ay saameysay. dowladda oo keliya kuma filna culayska hawsha gurmadka abaaraha ee inoo taallaa. waxaa loo baahan yahay inaynu caqligeenna, cududeenna iyo cuudkeenna u midayno gurmadka dadkeenna tabaalaysan. sida keliya aynu waxtar ku gaadhsiin karnaa waxa ay tahay midnimo qaran, iskaashi, isku damqasho iyo iskaalmayntii laynooga bartay xaaladahan oo kale. sidaa darteed, ganacsatada, shaqaalaha kala duwan ee dalka, culimada, haweenka, dhalinyarada, qurbo joogga iyo guud ahaanba qof kasta oo muwaadin ah gudaha dalka iyo dibaddiisa, waxaanu u diraynaa khayradhaan aan kaga codsanayno inuu si buuxda uga qayb qaataan gurmadka iyo gargaarka aynu wax ugu qabanayno dadkeenna ay abaaruhu haleeleen. aynu sidii caadada inoo ahayd qalbiyadeenna u furno, dhibtana la wadaagno walaalaheen. sidoo kale waxaan khayradhaan u dirayaa deeq-bixiyayaasha, beesha caalamka, hay-adaha samafalka ee caalamiga ah iyo guud ahaanba dalalka aynu saaxiibka nahay inay naga garab siiyaan xaaladan adag ee dalku galay. waxaan leeyahay, caawimada aadna soo gaadhsiisaan wakhtiga ku habboon waxay badbaadin kartaa dad ay noloshoodu halis ku jirto, waxaana soo celin kartaa rajada nololeed ee bulsho jilicsan. walaalayaal, ummadaha xilliyada adag ee soo mara waa imtixaan lagu ogaanayo dadnimada, isku duubnida, iskaashigooda iyo inta daacadda ay u yihiin walaalnimada, muslimnimada iyo qarannimada
ay ku wada abtirsadaan